أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله ربي لا أشرك به شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام يا وأنيقو أمام مليون oo idin leh aad baan u farxsanahay waxaan idin la wadaagayaa waxaan ku farxsanahay qofkii channelkayga daawado subscribe-ka thumb up-ka suulka kor loo taago share-ka comment-ga intaba idinka sugaya waxaan rabaa inaan idin soo daadiyo barnaamijka caawa aan wado oo ah farxadda iga muuqata waliga iyo allaha ballanqaad ma ku qabowday ballanqaad wax lagu ballanqaaday oo farxada ku qabowday ma ku faraxday ma ku nasatay ma ku seexatay noloshaadu ma isku bedeshay anigoo maama malyoon ah waxaan baraha bulshada ka soo hadlayay sanadkii 7 ba hadda ii socda 7 sano ayaan waxaan ka hadlayay wax dhaca oo aniga igu dhacay oo aan ka raadinayay community-gayga ama qabiilkayga ama reerkayga ama family-gayga inay iga dhahaan waa ka xunnahay wixii ku dhacay. I'm sorry inay igu dhahaan baan 7 sano raadinayay waa sanadkii 2023ga March aan ku jirnaa waa sanadkii 7 baa ii socda. Finally Soomaali way fahantay, Soomaali waa ay ogolaat cagahan dhulka ku hayay muddo cabaar cagahan dhulka ku hayay cabaar waxaan suganayay one day in la dhaho way dhacdaa maama malyoon sorry MMS raalli ahaw kordahabay soor ilay dhahan raadinay war helay 7 sano ku helay maxaa saan u suwaayay 20 sano xataa haday igu qaadato 30 sano haday igu qaadato inaan ku taagnaado wadada aan ku taagnahay xagga iyo xagga midna inaan uga leexano inaan ku sheego sida aad u ogolaatid. Okay maxaa benefit ah oo 30 sano ugu luminaya waxaan 30 sano ugu luminaya faa'iido ah waxa faa'iido ah waxaan waa nabar xanuun badan oo aniga igu dhacay nabarkaas xanuunka badan oo aniga igu dhacay ayaan waxaan ka badbaadinayaa ummad caruur yar inay inta ku dhacaan sidaydoo kale waqti dheer dhaawacay ahaadaan dhaawac aan la arki karin dhaawac aan la dhayi karin dhaawac aan la arki karin dhaawac aan la dhayi karin yaa ayaa dhimirkayga iyo dhexdayda iyo dhumuqaygaba ku dhex noolaa adinkuna way garan weydeen laakiin maxaan ka dhaadhicinayay inay jirto subax walba fayl baan wataa wuxuu leeyahay hal cinwaan buu leeyahay cinwaankiisu waxa weeyaan waa kufsi cinwaankaas kama dego kama dhaco kama tago waa hal cinwaan kasa la igu yaab kasa la igu caayay kasa la igu fogeeyay waxaasoo dhan waxaa idinku sheegayaa waxa weeyaan waa wax dhaca oo jira oo aan laga dhuuman karin laakiin waa dhaawac aan la arki karin dhaawac aan la noolaa ilaa iyo dhalaan markaan dhaawac aan la noolaa baan anigoo xoog leh waxaan damcay inaan dhayo markaasaan waxaan waayay wax ila dhaya tol ila dhaya sokeeye ila dhaya Soomaali ila dhayda waa nabar igu yaala oo aadan walaal arki karin moogta nabarka igu yaala miyaad aragtaa may anaa kuu sheega laakiin waad rumaysan weyday waxa aan ku foodhacaba finally waxaan helay daawadii waxa soo socota 8 Abriil waa 8 bisha soo socota ee Abriil ee 2023ga waxaa la ii samaynayaa maxaa dhaa imaamad in la dhaho sorry in la imaamado sorry dar alla ku deg kuween baa tahay gabadhayadii baa tahay tolkaa baan nahay wixii kugu dhacay waa ka xunnahay in la dhaho ayaan u taagnahay heeso in la ii qaado qalbiga ii dejiya ku qabow qalbigaago ku qabow quruxdaada ku qabow gabadheenay ku qabow
hees aan ku qaboobo jikadayda ka daarnaado qolkayga ka daarnaado oo youtube-kayga ka daarnaado ciwaan kastoon joogo tiktok-kayga ka daarnaado snapchat-kayga ka daawado instagram-kayga ka daarnaado anigu aan leeyahay oo kuwinaa mas leedahay ayaa waxaa ii ballan qaaday Siciid laba nin la dhaho oo ah madaxweynaha tiktok ee majeerteen bahweynta majeerteen waxaan u sheegayaa inta kale ama inta Siciid ama ka soo horjeeda ama aan ra'yi ku raacsanayn ama ayna close ahayn ee ma jeerteen waxaan idin sheegayaa anigu waxaan ahay gabadhiinii qof dhaawac ah oo aan daawo la siin oo carar dhabana oo cabaadaya qol hadduu kula seexdo hurdadaada ka sheekee ilaahan kugu dhaarshiyo commentiga iigu soo qor qof dhaawac ah oo caradhabana oolaya oo aan daawo nabarka ka baabi'isa la siinin xanuunka ilowsiisa la siinin ee qolka kula jiifa hurdadaada ka sheekee kabaraadaya ma seexan kartaa anigu waxaan ahay gabar dhaawac ah oo caradhabana oo 50 sano ooyeysay maray kula joogto oo hortaada taagnayd iyo maray gudaheeda ka ooyeysay iyo maray dhakhaatiir ooyeysay waqtigeedu isugu jiraan nabaraadan garan karin ayaa walaal iga dhex buuxayay oo igu dhex yaalay marka waxaan rabaa inaan idin sheego asxaabta haddaad tihiin gifter iyo haddaad tihiin dadka caadiga ah oo public figure-ka ah ee bahweynta ma jeerteen haddaad tihiin dadka i taageera habeenkaas yaan la ii kala harin waxaa la soo samaynayaa loogadaasi waxaa looga hadlayaa arrintaas waa sida aniga tolkay ii sheegay 8 Maarch wax ma isbedeli karaan dee waaba la dhiman karaa wax waa la isbedeli karaano haddii la dhintana haddii la nool yahayna wax waa isbedeli karaan haddii aan dhimanana wax waa isbedeli karaan laakiin waxaa idiin sheegayaa waa ballanqaad ballanteennu waa 8 bisha abriil ee 2023 habeenkaas waxaan u malaynayaa inaan soo gadan doono maryo baati ah because naabakiin ima celin karo oo aan ilmada isaga tiro why because waa habeenka boogtaydii daawadeedii la helay weligaa adigoo kansar qaba weligaa adigoo xanuun adag qaba dhakhtar inta lagu geeyo lagu qalay waa lagugu guulaystay ama ma aragtay qof lagu guulaystay sidoo kale la iigu guulaysanaya insha Allah haddii la soo dhaweeyo jeerteenow waxbay cayday waxbay maagtay reer hebel waa ma jeerteen maama milyan waa ma jeerteen dulmanaan ahaa dadkayga waxaan u caayayay nabarka igu yaala inay arkaan kaala ii imow kaala ila arag kaala ila fiiri nabarka ma aragtay ma ila aragtay markaad isqaafisid waa ku karbaashi jiray waxaan ku karbaashi jiray inaad nabarkayga ogaatid inaad nabarkayga fiirisid inaad nabarkayga itiraadid walaala itus inkastuu meel qarsoon ku jiro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mooyaane cid kale arki kara nabarkayga haddana markaa afa kaaga sheego inaa ila danqatid baan jeclaa way garan weyde way dhacdaa laakiin maanta la igart inaan shaqaysto inaan Mareykan ku noqdo inaan adduunyaha goosho inaan mar walba farxo in kuwa i aflagaadeeyay ay igu dhahaday ku caayaysa nabarkaas la ii yeelay la iga daayiyo way dhibaay erayga ah qof allaala qofka ila istaaga hala hadlin haday ku caayaysaa ma jeerteen markuu ii qubeeyo oo i dhaqo oo i nadiifiyo oo aan farxo oo aan qoslo eraygaas aad tiraahdaan inuu been yahay markaas soo baxaysaa laakiin hadda kama hor dhacayaan ku yiri channelkayga qofkii daawado no hadal maaha hembererse arag maaha no hadal maaha hembererse arag maaha bum oo hadana bum bartana balaha la iska rifaayay gabadhan beautiful ka reer bay ka dhalatay reerkay ka dhalatay haday ballanqaadkay ii ballanqaadeen ay ii sameeyaan qalbigaygu sida dhabankaygu qurux badan yahay wuuna ka sii qurux badan yahay insha Allah markaasaad arki doontaan farxadayda nasiinadayda isbedelkayga horumarkayga dadka saan wax u qabto markaasaad arki doontaan waa marka tolkay boogtaydi inta fiiriyeen ay dhaheen waa ka xunahay I'm sorry
warwaanoo kuwin kordhaabee channelkayga qofkii daawada oo subscribe-ka iyo thumbka iyo share-ka suulka dad badan oo idaawadaa jira laakiin aan subscribe ii ahayn please subscribe waa one time subscribe ii wada saara Soomaaliyay I love you daaroodow I love you majarteenow I love you aniga haddaa i garataan weligay I love you daasaan idin haynayaa eray xun aan leeyahayna ma maqlaysaan wanaagayga mooyaane intaasaan baraha bulshada ku jiray sumcad xumo igumaydnaan arag xoogaa yaroo kan xanaaqo dabeecadayda ah oo xiiro oo qaawan oo laakiin waxyaalaha aad ka dhimataan weligay igumaydnaan arag waxaasna waxaan u samaynayay sumcadiina waa ilaalin jiray tayda iyo tiinaba salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh